keto diet, carnivore diet. dabcan waan ogahay dad badan oo waxa idin kamida maanta jeclaan lahaa dietyada noocan ah inay ka war doonaan si xal aan ugu helno at least miisaankana saaran jirkeenana aan u qurxino. labaduba ketoga iyo carnivore-kaba waa laba diet carbohydrate-ka yahay waxa cuntada laga saarayo. Carbohydrate marka ku leeyahay baasto, bariis, burka cad waxa laga sameeyo oo dhan, fruitska iyo sidoo kale waxa soo dhexgalayo khudradda naftirkeeda. Waxay ka siman yihiin balanqaadyo sida inuu miisaanka degdeg kaaga dhacayo waliba bil gudaheeda, sidoo kaleetana xanuunadan chronic-ga sida diabetic-ka, blood pressure-ka in ay dad badan ka caawiyaan. laakiin sug midkee adiga ku shaqeyn karaayo. isku day videogan ilaa dhamaadkiisa inaad daawato. waxaan isku dayi doonaa inaan mid u dul istaago, side effects ku soo gudbiyo, science-ka muxuu ka leeyahay inaan kula wadaago, sidoo kaleetana tala aan ka siiyo kii adiga ku anfici karaayo. haddii aad videoga ka heshay dabcan like noo saar. like-ta hadday kun gaartana haddaa u baahan tahay daayadyadan mid inaan u dul istaagno hal ka soo qaadano kadibna qade iyo quraac casho aan ku beesgareeno waan kaaga soo sameynaya. waqtiyadan dambe waxaa soo tarayay daayadyadan inay caan ku soo noqonayaan bulshooyinka adduunyada ku nool. Somali badan oo waxaa jirta isku dayday in ay sameeyaan balse gadaal dambe markay ogaadeen dietku inuusan dhaqankooda iyo cunooyinka ay yaqaaneen uu ka dhaxbaxay dib iskaga soo laabtay cunooyinkii hore u cuni jireen. assalaamu calaykum, magacayga waa Qodob Sabriye. dabcan halkan waxaan ugu hadlaa arrimaha ku saabsan fitnesska, caafimaadka iyo falcelin mararka qaar aan ka sameeyno waxyaabaha arrimahan khuseeya. yaana war badan idinku dilin aan ku bilaawno keto diet-ka. waa maxay keto marka hore? ketogu waa diet baruurtiisu sareyso. dabcan high fat diet ah, proteinkiisu dhexdhexaad yahay, carbohydrate-kana waxa ugu liita ee la isticmaalo uu yahay. marka carbohydrate ku dhahayana fruitska iyo vegetables-ka ama khudradda iyo fruitska way soo dhexgalayaan. cuntooyinka la cuno waxa ugu waaweyn avocado-da, saliid saytuunka, hilibka qaybtiisa baruurta leh, chickenka, kalluunka, ukunta iyo khudradda cagaaran qayb kamida. khudraddan waxay dhahaan diet-kan keto loo yaqaano waa halka meel uu carbohydrate-ka ka soo galo. qofka markuu ketoga bilaabo jirkiisu wuxuu galaa marxalad kaleete oo loo yaqaano ketosis. ketosis waxaa la dhahaa jirkaaga hadda waxa inta badan uu isticmaalo waa glycogen wax loo yaqaano. tamar ahaan inaan hadlo, inaan wax kuu sheego, inaad dhaqaaqdo, inaad gym aado, inaan wax walba sameyso, tamartii energy-ga jirkaagu isticmaalayo dabcan maskaxdaada inay shaqeyso, inuu wadnahaaga shaqeeyo waxay ka imaataa cunto aad cuntay oo kadibna tamar loo bedelay. cuntadu tamartu laba nooca loogu bedelaa. mid waa wax glycogen la dhaho oo bariiskii, baastadii, burka cad ka yimid. midna waa wax ketosis la dhaho oo inta badan body fat-kaaga ama jirkaaga faatka u keedgaraysan ka yimid. qofku marka carbohydrate-ka laga gooyo cuntooyinkan faatka badan leh inuu isticmaalana uu bilaabo si toosa jirkiisa bedelka uu isticmaalayay glycogen-ka wuxuu u isticmaalayaa ketosiska amaba faatka jirkiisa u keedgaraysnaa. saasoo qofku wuxuu ku noqonaa 24 saac maalinkii qof faat guba xataa marka uu hurdaayo. ma ogtahay jirkaaga markuu hurdaayo xataa in aad energy gubto? dabcan yes, markaa hurdaysid jirkaaga wuu shaqeynayaa, adi unbaa jiifa. maxaa faa'iido laga helaa ketoga? kow, miisaanku ka dhaca waliba waxay ku qiyaasaan waqti bil gudaheeda ah. focuska iyo feejignaanta qofka oo isbedesha, sonkorta dhiigaaga oo control yeelata. saddexda cunto ee aan cunno marka aad u fiiriso waxa sonkorta inta badan kor u kiciya waxay dhahaan number 1 waa cuntooyinka carbohydrate-ka, number 2 na waa proteinka. faatka waa waxa ugu yar ee blood glucose-ka qofka kor u kicisa. dhakhaatiir badan oo waxaa jirta maanta programkan ketoga ama diet-kan ketoga promote gareeya. sidoo kaleetana xanuunada sida epilepsiga ee maskaxda ku dhaca iyo xanuunada chronic ah sida macaanka oo kale dad badan oo loo isticmaalay in uu xanuunkaba kaga zuulayba. dhanka kale carnivore-ka asagana waa maxay? waa hab cunto ah oo kaliya qofka uu cunayo hilibka nimcooleyda ah iyo caanaha, ukunta u soo ziyaada. waa waxaan Soomaalida ee u taqaano cad iyo caano, wax kale aan la taawanaynin, xitaa khudaarta cagaaran lagu ogoleen. kalluunka iyo chickenka sidoo kale waa lagu ogol yahay, iyo hilbaha sida beerka iyo kelidoo kale waad isticmaali kartaa. faa'iidooyinka carnivore-ka laga helo inta badan waa wax loo yaqaana anecdotal. ma ahan wax si toosa loo baaray, waa wax shakhsiyaad ku eg. dad baa isticmaalay ayagaana soo gudbiyay faa'iidooyinka laga helo. ma ahan wax waraaqad ku qoran oo la daraasadeeyay maahan. dhakhaatiir badan hadda maanta promote garaysa kuna taagan haddii la isticmaalo xanuunada sida autoimmune-ka inay jirkaaga ka zuulayaan. sidoo kalena
miisaanka uu degdeg kaaga dhacayo sidoo kale dadku waxay ku doortaan carnivore-ka dad badan waxa uga caafimaaday xanuunada caloosha ku dhaca gaar ahaan xanuunada digestive systemka mindhiciraha caloosha kulli awood iyo tamar joogto ah iyo sidoo kale qofka oo aan gaajo dareemeynin maadaama waxa uu maanta oo dhan cunayo ee tahay hilibkuna in digestive systemkaaga uu degdeg ku maro ee aad u adag tahay calooshaadana maanta oo dhan ay direct dareemayso waan halku miisaanka inuu ka dhaco ka imaanayo borotiin tayo sare leh dabcan waxa aad cunaysaa maadaama ukun iyo hilib iyo caano kaliya ay tahay waa diet aad u fudud dadkuna ay ku jecel yihiin dabcan markay shaqooyinka ka imaanayaan ama markay shaqadooda aadayaan in hilib ay dabka saarayaan galaas caanaan ay ku cabaayaan amaba ukun yar ay sameysanayaan kadibna ay hore ka cunayaan fudeedkaasna dadku ku doortaan haddaba maadaama aad fahantay labadoodaba maxay dhibaato leeyihiin dabcan qasab waaye wax walba oo dadku ay isticmaalayaan wax side effect ya meesha uu soo galaya keto-gaan ku bilaawno keto qofka markuu u bilaabo isbuuca ugu horeyso iyo isbuuca labaad waxaa jirto xanuun la dhaho keto flu oo dadka ku dhaco muxuu yahay inta badan jirkaaga sida hore kugu soo sheegay hadda wuxuu isticmaalayaa glycogenka carbohydrate ku keedgareysnaa mar walba murqahaaga glycogenkaas uu ka soo baxayo uu ka sii dhamaanayo maadaama la rabo faadkaaga in la isticmaalo biyo badan jirka ka raaco biyahaas carbohydrate-ka la socda ee raacaya waxaa raaco electrolyte muhiim ah sida sodiumka magnesiumka iyo potassiumkaba taasa waxay keentaa qofka inuu madax wareer madax xanuun matag iyo inuu maalinko dhan warwareero in ay ku timaado carnivore-ka sidoo kale asigana side effects waxa kamid ah calool xanuun caloosha ku adkaata saxarada li'annahu maadaama khudaartina laga reebay wax carbohydrate meesha uusan ku jirin fiberka meesha ka baxayo fiberka mar walba meesha ka baxana waxa imaanaysa calooshaada inay adkaato maalmaha ugu horeeya ilaa iyo hadda waa la baarayaa fiber la'aan qofka ma noolaan karaa because mar haddaad carnivore diet gasho fiber waad kala dhamaateen fiber la'aan qofka ma noolaan karaa jirkana asiga gudihiisa ma laga samayn karaa ilaa hadda way baarayaan laakiin calool xanuunkaas iyo sidoo kale in caloosha ay ku adkaanayso waxay ka mid tahay calaamadaha lagu yaqaan carnivore diet-ka gabagabo marka maxay cilmi baaristu ka leeyihiin ketogu waa boqol mid kale la isku haleyn karo oo waqti dheer laga sameynayo baaritaan dhaqaatiir badanna ay ku guuleysatay xanuuno badan oo chronic ah dadku inay kaga caafimaadeen miisaan badanna ay ku rideen sidoo kale sidaan hore idinkugu soo sheegay xanuunkan epilepsy-ga la dhahay maskaxda ku dhaco isna dad patient oo qaba lagu barooweeyay sidoo kalena ku caafimaada ketogu waa number 1 diet-ka hadda maanta la dhihi karo waa la isku haleyn karaa qofka haddii cuntooyinkaas la cunayo uu ka bixi karo si daily inuu isticmaalo fiiro gaar ah ketoga haddaad rabto inaad isticmaasho waxyaabo badan oo wuxuu leeyahay keto friendly la dhaho waxyaabo oo suuqgeyn loogu sameeyo in haddii dietkaas keto aad isticmaalaysid wax badan ay ka caawinayaan laakiin waxba kama jiro haddaad rabto inaad sameyso keto diet waxyaabaha caadiga ee organic lagu sameeyo ku sameey miisaanna uu ka dhacaa sidoo kale caafimaadyadan aan ka hadleynana si degdeg aad ku helaysaa carnivore-ka markaan u imaano marka carnivore-ku waxaad ogaataa cilmi baaristiisu way kooban tahay dhaqaatiir badan oo waxaa jira isticmaalo faa'iidooyin badanna ku sheega oo ah mid caafimaad iyo mid miisaan dhimis ah laakiin ilaa ay hadda dadaal waxa loogu jiraa in uu saxan yahay wax ay dadku wada isticmaali karaan uu yahay iyo in kale dabcan baaritaankiisa weli wuu socdaa gabagabo marka adigu midkee dooran lahayd midkee anita la ahaana aan ku soo gudbin lahaa haddii aad rabto inaadan cuntada inteeda badan aadan ka wada tagin khudradana aad jeceshahay oo dadka khudaarta aad u cuna aad tahay mararka qaarna aad rabto inaad fruit yar ku xaddo ketoga iska dooro haddii aad naftaada ka adag tahay dabcan oo aad cad iyo caano ku noolaan karta sida awowyaasheeni hore oo kalena dabcan carnivore iska dooro midna xusuusnow mid walba oo aad labadooda doorato waxaad ogaataa dietku kan aad joogtayso kaliya unbaa kuu shaqayn karaayo dabcan haddii aad horay u samaysay keto diet aad ku fashilantay ama uu kuu shaqeeyey ama haddii aad carnivore intaad isku daydo uu kuu shaqeeyey ama aad ku fashilantay fadlan commentiga nagula wadaag waa walaalka Qodob Sabriye hoos waxaa idiin yaalo mar kale idin xasuusinaa insha Allah taala 5 quraac oo aan ka soo shaqeeyay oo high protein quraac ah sidoo kale 7 beri oo aan ugu talagalay qofka haddii uu rabo inuu program cusub bilaabo uu indhaha ku furto haddii aad u baahan tahay numberkeyga ama aad rabto inaad ila soo xiriirto si aan barnaamijyadeeda qayb aad uga noqoto numberkeyga sidoo kale description ku yaala walaalka Qodob Sabriye. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.